xildhibaan Saadaq John iyo Haybado Ismaaciil Cumar Geele oo arooskoodii meherkooduba ka dhacay Jabuuti. waxaan leeyahay hambaliyo reerka cusub, waxaan leeyahay soo dhawaada, kuwii barakooba ilaahay ha ka dhigo. lama dhihi karo aroos kaliya, waxaa la dhihi karaa kulankii kulmiyey madaxdii Soomaaliya. waxaa la dhihi karaa aroos ma ahane shirweynihii shanta Soomaaliyeed isku keeni lahaa, ama inuu noqdo oo Soomaaliya oo dhan ku midoobi lahayd. marka ayagana waxaan leeyahay reerkii arooska Saadaq John iyo gabadha madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo kulmiyey madax aan siyaasad ahaan isugu imaan karin, laakiin maanta arooskaas iskugu yimid. ma ahayn madax danaha dadka iyo dalka iskugu yimaada ama siyaasad iskugu yimaada, laakiin maanta arooskaas ayaa kulmiyey oy iskugu yimaadeen. marka waxaan u malaynayaa Haybado Ismaaciil Cumar Geele inay noqoto gabadhii shanta Soomaaliyeed isku keeni lahayd. inkastoo Soomaali ay ku mahmaahday haddaad ammaan rabtidna dhimo, haddaad cay rabtidna guurso, oo horeba looga bilaabay ninkii hore ma furin iyo hadallo lamida ah. laakiin wixii kolleyba ilaahay unbaa og, waxaan anagu ognahay ma ahan. ayagana waxaan leeyahay kuwii Soomaali midayn lahaa allah idinka dhigo, xildhibaan Saadaq John iyo Haybado Ismaaciil Cumar Geele. ilaahay ha ka dhigo kuwii Soomaali midayn lahaa oo isku keeni lahaa, reerkooduna uu noqon lahaa reer waara. allah ka dhigo. annaga intaasay nagu leeyihiin inaan u hambaliyeyno, inaan u ducayno bay nagu leeyihiin. marka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo, reerkii jiroo jooga allah ka dhigo. madaxdii Soomaaliyana waad kulmiseene, yaa madax aan siyaasad iskugu imaan karin ayaad kulmiseen. shanta qaaradood iskaga yimid Soomaaliya oo dhanna kuwa kulmiya allah idinka dhigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.